jacayl hadimadiisii adigay horseedo halbowlaha digoyso igamana waraysidee jacayl hadimadiisii adigay horseedo halbowlaha digoyso igamana waraysidee eegadii kalgacalka dusha iga haraysay haddii aanan wadanay isku ka hadlaynay heesa kuma qaadee haye kuma idhaahdee eegadii kalgacalka dusha iga haraysay haddii aanan wadanay isku ka hadlaynay heesa kuma qaadee hani kuma idhaahdeen nin dartaa u galay halis lama gooya hanaaqee hayga marin hareertee kalgacaylka ilaa hubi ka ilaali hadimada nin dartaa u galay halis lama gooya hanaaqee hayga marin hareertee kalgacaylka ilaa hubi ka ilaali hadimada haddii uu ku helilaa kaagaman hariiro habayaan ku siin lahaa maogtahay berinaan safraay walaalo fiisayga waa 2 sano ma dhacaya ma imaadsan lacag mar baabaay khayran ku rajinaya waa mahadsantahay اسم دافنو مع السلامة Don't worry, your kid is okay. Don't worry. What's happened? You know this guy? This guy? Stay. Subhanallah. Hayat maantan madow Allah. Sallallahu alaihi is Ibrahim Rashad. He is Egyptian like me. What happened for him? This is a question you're gonna answer for us. Your meaning? What? Mr. Ibrahim being killed 1 hour ago. Can you tell us where you've been? I make shopping with my friend. He works lawyer. He's a solicitor. Yes. His name is Fauzi. Why Mr. Ibrahim is here in your house? Ma garanayo waxa ninkan gurigayga keenay. I don't know why he come here.
Is he coming usually to your home while you are outside? يعني ايه what This gentleman coming to your home while you are outside? no no What's the relation between you and him? friend just a friend What do you mean friend? friend What kind of relation between you and him? Is it business? yes I work with him And usually he coming to you without any appointment? I don't know maybe he won't talk with me Okay. Please come with us to finish the investigation. gormay dhaceen waxaas ina aniga abukaataaga mu sheegtay haddaan ku imaanay don't worry ha cabsan zuura waxba walwalin kaligaa ma tiid anaa kula socdo koranka ilaashooda don't worry ها عمساوي لندن ayaan joogaa haa shalay aan soo galay duhurtii waxaan la ballansanaa ninkii la dhahaya ibraahim laakiin waa sarki weynay telefon ayaan u diray mar kasta telefonkiisu u dhacayaa mana qabanaya nasiib darro oo waxba lama socotid adigu haa ibraahim rashaad waa la dilay kolleyba tvdaad ka daawanaysaa caaway soo saarayaan haa mudana waa la dilay haa nusu saac ka horaa ila soo socosiyay arrintan oo in rashaad la dilay walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliyu alcadiim war ninka shalaa isla joognay maxaa dhacay waxaan ka wada hadalnay xataa aniga isaga inaan israacno oo aan zuure aan soo booqanno ayaan ugu talagalnay waxaan ku weydiinaya yaa dilay ii sheeg bal ninkaas yaa dilay wallaahi zuuraasaan lagu tuunsan yahay zuura oo maxay tahay laqdabadan oo zuura maxay samayn kartaa wejigay zuura wax ku dili karta maxay tahay ii sheeg bal taasaan la yaabanaya oo intuma waxay u timid wallaahi gurigeeda falka ka dhacay farta ayadaa lagu fiiqoya midda kale ma cadday karto falka xilliga u dhacaya meeshay ku sugnayd hadday taas caddayleed waa fududaa leed xooga oo yaa dila waayahe ana ay weydiiyeysaa inaan ogahay camal see waay aniga haddaan ogaa lahay maba lays haysanayn zuura xataa lama xir lahayn waa u sheegi lahay baliid indhageys fawzi ayada xaggee jirta marka falkan dhacay ii sheeg wallaahina ani ayada waa isla soconay wax yar shopping aan sameehay tiri waa kale hernay Oxford Street meel la dhahay shopping lagu sameeyay aaday meesha igu wardamay waya gabadha daada la yiraahdo ayada soo uma sheegin inay baxday daada waa uu sheegtay booliiska waa maqnayday tir laakiin booliiska warkaas ma ka aaminoyo dhib ka jiro wallahi waa arrin cajiib ah dadkan ma raban inay wax fahmaan zuura maxay dili kartaa ayada kaba soo qaad inay asaga iyo ayada wax ka dhaxeeyeen meel kale ay ku dishimay wayso markii gurigiisa ku dilayso maxaa dhacay ayada dad cun miyaa ii sheeg bal wallaahi qafla baabeynay ku jirtaa markaan zuura arrinta waa xun tahay indhageysi fawzi cuntadan markaan dhammaysano oo caafimaad ku cunno suuq ayaan tegaynaa lacag ayaan soo sarifaynaa kadibna looyar ayaan u qabanaynaa xaajiyow lacagtan waxaan ku soo xasuustay maalintaas aan isla soconay cash machine ayay lacagta credit cardkeeda gelisay cash machine-kii lacagay kala soo baxday waa isticmaashay maalintaas waa xasuustaa credit cardkeeda isticmaashay war taas wax macnaha ma abuurayso cash machine-kan meel kasta ayuu ku yaalla adduunyada waana lagala baxaa lacagta xaajiyow cash machine-ka waqtiga ay isticmaashaa muhiim ah haa macnaha ma waxaa ka wadaa dad markhaati ayaa loo helayaa waqtiga ay kala baxaysa saas maaha waxa waaye cash machine-ka yurubka markaa isticmaashid wuxuu kuu soo saaraa rasiid wadada magaceeda bangiga saacaddii aad isticmaashay waxa dhan ku qoran yihiin adiga soo saare fiican ayaa tahay fawzi okay hadda maxaan sugaynaa waa inaan bangiga tagnaa lacagta soo sarifnaa kadibna aan looyar u qabanaa reedhe hadda haddaan la heli lahayn rasiidkii ma xabsigaas iga jiri lahaa see hadlaysaa war haddii xataa rasiidka la weyn lahaa aniga dhulka ayaan la rogi lahaa ayagoo dhanba abukato waa mahadsantaha abukato khayr laqsi okay thanks hi bye ay goodbye see you bye Bye. bye thank you Bye. bye okay bye wassalaamu calaykum hay fawsi waa u laabtaa u malaynaa xaqiisi xaajiga waajibkaas gutay ha maa sanad xaaji aniga mahadsanid inay dhahda maba ahaba waxaan ahaa aniga ninkaagii waajibaadkayga ayaana ka soo baxay see kaa noqotay ha yaaqay adigu hadha waxaan ku weydiinaya weliba waxaad ku adkaysanaysaa in aniga qabtid war hadha london ha u timid qabso annaga maxaad nagu nacday
sugba idinka dad waaweynaatihiin waddada isku fadeexaysan hotel 5 star aan uga sheekaysanaynaa arrintan warmay anigu waxaan u baahanahay laba cisho inaan nasto uma baahni waqti iyo warar kale uma baahni midda kale ilmahaygii nafteeda bas aan ka fikirayaa ilmahaaga waa caafimaad qabaan alxamdulilah raallaha fuuji waxaa la rabaa gabadhan xoogaa way kacsantaha hadda intii ay kasoo degaysa labadoo maalin inaan u kaadinno waayo kadibna aniga iida waa wada hadli karnaa tartiib si degan ayaan isku fahmaynaa sidee tahay zuura maajid zuura sidee tahay mahaya ma soo roonaatee oo ma ogeyn miya xaggee ka ogaana markaan masar ka soo ambabaxay waxaan ogaa inaan waa la nooleede x xaaji faraqaaga london horan week ma ku waramin miya xaaji farag hal mar baan is aragnay markaas arkayna marxaladda aad bay u xumeed ilaahay baana igu ogaa markaa alxasil aniga wax walba waan ogaaday ha adoo wax walba saas u eg ayaadan haddana iga soo wardooni sooma maxaan ka qaban karaaye waa ilaahay mahadiis haddaa bannaanka joogto goor maa imaada adigu maajidow xaajiga markuu yimid aa imid ma is aragteen aniga la arkay laakiin asiga waa uu inkiray muxuu ka wada wuxuu diidanaa inaan ogaado meesha adiga aad joogtid see ka ogaata adiga inaa inta joogo yaa kuu sheegay fawzi oo ma haddana fawsiya aragtay maya taleefona ku wada hadalnay oo aniga maxaad ii soo wici weysay masle lambarka taleefonkayta maskaxdaad markay tirtirmato asna tirtirmaday maya waxaan rabay sarbareys inaan kugula kulmo laakiin ma sheegi kara inuu sarbareys murug yahay iyo mid farxad leh inuu yahay waxaan ku weydiinayaa meelaa inta ahayn ma ku wada hadli karnaa nabad ma og tahay masiibada intaysan kuugu dhicin sidaan ku ahay waxbaa cabsan adiga aniga wax walboo dhaco waan la socdaa waana kaa dharagsanahay maxay tahay isbeddelka weyne kaa muuqda maxaa aragtay maatiid waajidkaan aqaan jiray oo jacaylku naga dhexayn jiray waxaad tahay qof weji kale leh aniga noloshii hore aan ku jiro dhan dhalantay ayay ahayd kadib ayaan nolosha dhabta ah la kulmayba sideeda maajid adiga hadal aan fiicnayna ku hadlaysa waxaad lowsan tahay inaan meel wadda ah fadhino hadalkan ku hadlayna wax ka gale haba yaraatee waddadaani ma jirto teeda kale waxaan eedana soo dhex maray waddadan wax ka gala haba yaraatee ma jirto waad dulminaysaa aad baa ii dulminaysa maajid aniga adiga kuma dulminayo adiga nafsadaada dulmiyey adiga anigii dulmiyey adiga wiilkeena yarow marawan dulmiyey xataa asigoon dambi ku lahayn wax dhacay adiga ma ogid wiilkayga saan ugu xiisay waa hagaag maajidow aniga iima xiiso sooma aniga adiga farqi weyn ayaa noo dhexeeyo aniga shil ayaa igu dhacay wuxuu nagu kalifay in adiga ku ilaabo laakiin adiga shil la'aan ayaa si bareeray ii ilowday waxaad ilowday noloshii macaanta badneed labadeenna markii hore aan ku nolonoo na soo dhex martay waxaad ilowday jacaylka quruxda badnaa na soo dhex maray laakiin aniga waxaasoo dhan ma ilaabin waxaanoo kale ilaabaynin inaad tahay gabadhii aniga nolosheeda ilowday waxaan ogaataa inuu naga dhexeeyo keliya wiilkayga marwaan bis miyaa hadda wiilkaadoo keliya miyaa naga dhexeeya anigu waxaan ku qaldamay inaan adiga ku jeclaado waxaan xaq ka galay xaajigii aniga isoo koriyey maajid biliis saas hay dhehen yaaqee oo maxaan kaloon ku dhihi lahaa adiga waxaad aaminsantaa sidaadaba waa lacag waxaad doonaysaa wax walba u baahanta adduunka inaad iibsatid wax walba u baahantaa in aad ku xelisid lacag ceeb caleyk ma adiga hadda aniga saas igu leh ها maxaa waxaa taa qof been leeyahay hadda ka hor waxaad igu tiri xaajiga maxkamadda ayaa iga furtay marka lagu xukumay 15 sano xarig kadib laakiin waxaan ogaaday inaad adiga iska fasaqday waxa soo dhan waxa ii sheegtay marka meerkii soo noqday walaashay jacaylan ku qaba u sameeyay jacayl aan ii qabto ma u maleynayo zuura adiga ayaa nafsadaada jacayl maxaa yeelay waxaad diidaneed inaad waqti iska qaadato nin lagu xukumay 15 sano
maxaa yeele hadda anigii jeceshahay ma guursateen saaxiibkii aniga markaa dhintay 3 bilood kadib anigana guriga saaxiibta ayaad iiga tagtay anoo xaalad culus ku sugan ayada naftirkeeda way igu dheedheeshay sababtay kugu dhashay mataqaanaa aniga ayay ii jeclaatay si dhab ah ayay ii jeclaatay maajid way inaga dhex faa'iidaysata nawaal nawaal aniga sidaan ugu soo tagay hadda meesha ku sugan taabeeratay ma ogi wallahi aadan ugu xumaa inaan ka soo tago nawaal maxaa yeele waa gabar wanaagsan hadda waxbayaan waqti isaga qaadan wixii hore u soo dhacay aan ka hadalna waxyaabaha soo socda adigu waxaa tahay xor aniga waxaan xor ani adiga wixina soo dhex mara noloshana waxay noqon doontaa mid xusuus oo aan ilaabi karin ani adiga jaceylkii kalgaceylkana soo dhex marayna waxay noqon doontaa agteyda nolol macaan oo weligii aan soo mari doonin mar walbana wiilkayga marwaan ayaan kugu soo xasuusan doonaa bilixsaanaga ii diidin inaan arko wiilkayga marwaan zuura noloshaada mar walba ka fikir saarida dambe oo xiise leh haye dhegdheg ma tahay carruurtaadii ma soo aragtay oo maku faraxsan tahay ها لكن أنا قولي كم درجة نمليك hadda waad aragtay jidkan degannahay marka wiilkaad u xisid kaalena soo mar إذا جيس السورة ولا في عيني هاي إن نسيس يسوس عن كجرنا أنا هذا وحنو يمد إن نقول جني أن سوء عشرنا farag sheekadan miyay dhammaad lahayn walaalo ma iska soconaysaa إذا جيس السورة أنا قد باتذو كويس أد أيان أقول دول قاتي علشان دباتذ هذا درتيت وحن كهرباء أنا إن مغشسي ونكسب أنا أد أيا قلبي هو الجرا حبيبتي أيا تاي أنا مرة وإنا قربان كوبا بعد أنا ليش هذا أنت كده من عبسي مياد كجريسة maxaytaa laakiin waxa ka cabsanaysid ii sheeg aniga gacanteedu wax walba ku soo sameeyay soo dhameeyay waxaan rabaa in dhibaatadaas aan si sahlan kaaga saaro yani maxaad kala jeedaa waxaan ka wadaa waxaan rabaa inaad waddankaaga adoo cisi iyo sharaf leh ku noqotid oo anigana aan wax walba kuu sameeyo laakiin arrinta dacwadeeda la xiriirtay waxaan ogaa iyadoo weli go'aan laga gaarin maxkamadda anigaa ka codsaday in dib loo dhigo insha allah bilaa dembi ayaad noqon doontaa kaba soo qaad in bilaa dembi aan noqon waayo markaasoo maaha inaan maxkamad lugayga ku doonto iyo dembi war adiga balaayo maxaa afkaaga ugu saadsanaysaa bal ii sheeg bal horta adi diyaar ma u tahay inaad nadiifisid oo wax walba oo lagugu leeyahay iyo bunuugtaada aad ka nadiifisid anaa ballan kaa qaada inaan garabkaaga taagnaado wallahi hadalkaada waan maqlay waan miisaami doonaa deetana waan kugu soo warceli doonaa tan koowaad aniga dan ayaan u imid midda labaad waxaan ahay ninkii sharci ahaan ugu horreeyay ee ku qabo maxkamaddana aniga ayay kaa xukminaya cid kale ku xukminaysa ma jirto maxkamaddu say doonta wax oo xukunto arrintan bilaaw iyo dhammaad aniga ii jirtaa zohra u soo noqon nafta ku jecel biliis ee sida xaqiiqda ah kuu jecel xataa haddii aadan jeclayn dhegaysa zohra waxaan rabaa carruurteena inay farxad ku koraan wixii qalada oo gashay oo dhan oo aad rag soo guursatay adi qalad kuma lihid waxaana caddaynayaa inay xaaskayga tahay markaas harta walaalkay inaa xirto maya taasa ka yaabin walaalkaa la xiri maayo waxaan kuu sheegaa haddii xataa walaalkaa la xukumo in xukun khafiifa la xukumayo war anigu waxaas kaama yeelaayo ma doonayo walaalkay in xabsi lagu xiro habeenna ha noqotee waayahay aniga waayahay maxaan meeshaan u imid oo waxaanu qarash u galay war nafteyda oo dhan ayaan ku huray zohra iyo dhegayso aniga run ahaantii aad ayaan kuu jecelahay adiga jacaylkaas uma jeedid jacaylkana ma taqaanid wuxuu yahay iyo wuxuu ku fadhiya qiimihiisa waayahay waxba ma kaa diidi karayna wadde safar diyaarad ma jecli waa lalabooha aan dhan wallaahine albaabkee baa laga baxaya kan weyn kan v i b da inaan soo socdo waa ogyihiin adigana ay la socotid fawsiyo biliis or soo fiir boorsooyinkii si aan dhaqsa albaabka uga baxno xaadir adinka oraali habna soo raaci kartaan soo socda xageenu soconaa wax daran miyaa jira maxaa jira taliya ana abukaateeda arrimihii maxkamadda ay u timid xaajiyo zuhra haddan wax dhib ma jiraan saldhig waa inaad noo raacdaa gabadhaana su'aalaad weydiinayna bas xaj faraq maxaa jira ma garanayno kolle wax khaladaa jira qaladabka muxuu yahay abale xir rabaaye amuurahaaga 100% waa yaa ku xiri kara adiga soo raac weliba si sharaf ah orda carruurta bariis oo fur meesha ku sugan haye waraana qaldamay markaan adiga inta ku soo raac waxba ma jiraan inna keena nawadiya
muxuu yahay dembiga la ii haystaa taliya gabadhan waxay waddanka ku soo gashay amar maxkamadda ka soo baxay dartiis maxkamadda ayaa amartay inay timaado laakiin anagu waxaanu samaynay waa hawshayna waxaanu ogeyn in ayada soo degayso waanu sugayna deetana waanu xirnay dee waa shaqadayna haddaad leediin hala sii daayeen anaga nooma taalo maxkamadday u taallaa maxkamadda ayaa arrintaas ku shaqale walaalle laakiin wixii ka sukeeye maxay ku sugnaanaysaa zuhra waa xirnaanaysaa dee oo maxaa kale waa xirnaanaysaa war ma anigoo dhan oo suuraad i leedahay qofta hala xiro oo jeel hala geliyo war waxaas waxaad u baahan waa lagu xirayaa dee maxaad qabanaysaa oo kale meeshan waa war sharci hadalkaas waxaad u baahan tahay dad waaweyn inay kaa dhadhacsiiyaan sug baade war waxaa sheegaysa maxay tahay war anigoo kale lama xiro dad waaweyn baa lagu wacay arrinta kaa dhadhacsiiyey sugba zuhra saas ma haddee ka wareega wariyaa ninka aan teleefon dirsaday ma hala qabto iyo bixin isiig teleefon dirsan anaa baaqan warka mudane xakiim runtii waxaa waaye mawduucan daraasad weyn buu u baahan yahay ma suurta gelaysa inaan deen qaadana annagoon damaanad lahayn waxay riisug raallahow mudane xakiim teeda kale maadaama hadda oo doorashada soo dhowdahay anigu wax ma ka qabo waa howlgalayaa haddii caloosheeda xoogaho adiga ah bisteki aa gelinaysa waa ka helaanay bistekiga moogta aad iyo aad dee waa wax lagu qasbayaa maahan in aan gabadha la xiro waxaan anigu aan samaynayno war waxaad ku qasbanta waa maxay waxaad ku qasbantahay in aniga xabsiga gur tuurto war adiga ii soo kaadira horta waxaad anigu waaba fahmi waaye zukr wax yar makaa dhex geli karaa walaalay ninkan hawshiisa uu fulina waa ku qasbanya waa sharci wax uu sheeg waa ku qasbanaa aniga waa sharci wade waxaan waa nidaamka sharciga wax u dhig maxay taa waxaan dhacoyo farago waan kugu qaldoomay waxaan ku qaldoomay in adigu soo raaca si la ii xiro maya wallaahi aniga inay sidaan dhacayso uma malaynaynin bliis aamin waa runtii zuhra xaajiga ma filin arrinta dhacday waa accidentii waxaan aniga sidaan inay u dhacayaan uma malayn anaana ku garab taagan idinka dhammaantiin waa wada baxaysaan gabadhaanna anaga inoo xidhaanaysaa ilaa biri maxkamadda laga geynayo askari adiguna ii xir gabadha يا سلام waxayna soo booqatay boqoradii miya jeelkii oo dhan baaba iftiimee ka waran quruxlee waa kala daadsantahay adiga dhan maxaa kugu dhacaya xabiibtii The Saudi German hospital is now open in Dubai, so you don't need to travel to Germany for treatment. Medical visa can be facilitated. Luxury full scope of medical services. The Saudi German hospital in Dubai offers state-of-the-art medical facilities at fees you can afford. Call us for more information. Alon Furniture, where quality and price meets. daaya gabadha waa masibo loo baahan yahay maxkamaddu waa furan tahay keeska koowaad fadlan wuxuu ku saabsan yahay zuhra wayna taagantaha waa xaadir ay kana garsoore zuhra calalla adiga miya ha aniga waaye zuhra calalla waxaa lagugu soo tuhmay inaa 4 nin hal mar wada aroostay arrintaas maxaa ka jira garsoore arrintaasi ma ahan mid sax ah way jirtaa inaan 4 nin guursaday laakiin waxaan ku guursaday si sharciga waafaqsan mid walbana waqtigiisaan guursaday mahadsanid zuhra iska aamus xeer ilaaliyahan aan u deenay hadal mudana garsoore iyo la taliyaashiisa waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh qofka eedeysanaa ah in lagu qaado xukunka ugu adag sababtoo ah zuhra calalla waxay gashay dembiga ugu foolxun hal mar ayay waxay isku guursatay niman kala duwan taasna waxay ka hor imaanaysaa sharciga dhaqanka iyo diinta
maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa gabadhan dambiile ah in loo samaynin wax naxariis ah looguna qaado dembiga ugu adag ayadoo tusaale u noqonaysa dhammaan dumarka ka hor imaanaya sharciga iyo diinka islaamka waa mahadsantahay garsoore meeshaan ugu baxay qareenka eedaysana soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين قرصورة iyo la taliyayaashiisa aniga waxaan halkan ka mid ahay kooxda u taagan inay difaacdo gabadhan masaakiinta ee aan wax dambiga lahayn zuhra cala allah waliba hadal oo kaliya meesha kuma hayo waxaan hayaa wixii cadeynayay gabadhan inaysan wax dambiya lahayn haba yaraatee way jirtaa inay guursatay 4 nin laakiin nin walba waxay ku guursatay hab nidaama sharciya dhaqanka iyo diinta islaamka waafaqsan ku talagalkeedu ma ahayn afartooda mar inay isla guursato laakiin amarkaas wuxuu ku yimid si aysan ayada ugu talagelin laakiin waxaa xaqiiqo ah kulligood si sharciyana oo diinta waafaqsan inay mid ugu guursatay oo maxaad cadeynaysaa mudane cadeynteeda ugu horeysa waa guurkeedii koowaad Mr. Galaal gabadhan wuu qabay waa xaqiiqo laakiin maqnaansho ayuu ku furay waxa uu xaq u lahaa muddadeeda markay dhamaato inuu soo ceshto nidaamkaasna waa uu maray xayisiin buu bixiyay gabadhii wixii loo baahnaa uu ku soo ceshtay wuxuu maray maxkamadda nidaamkeedii maxkamadduna waa ay aqbashay warqad ayay waxay u dirtay zuhra cala allah laakiin gabadhan masaakiinta ee zuhra warqadaas ma aysan gaarin mana aysan saxiixin marka kamaba warqabto inuu ninka soo ceshtay in kale oo warqadii gacantiisa ku dhacday ninka walaalkeeda ee la yiraahdo Khaliil cala allah marzuuc oo la dhashay ayada asaga warqada saxiixeedii oo kale ku saxiixay falsification sidaas ayuu ku celiyay waliba waxa ka sii daran originalkii markuu maxkamaddu u celiyay koobiga ayada loogu tala galanay waa uu jahjaxay ayadana wax uu la socodsiiyay haba yaraatee ma jiraan marka way ka war laadahay sadarteed waxa jeclaadeen xaaji farag abu yusra ayadoo madax bannaan oo isla lama qabo ayayna si niyad samee oo sharci ku guursatay xaaji farag wax badan lama aysan noolaan muddo gaaban markii uu qabayna masiibo aan halkan ka sheegayn baa ku habsatayo maxkamaddii bay kaga furantay sidaa kadib waddadii bay dhammaysatay deetana waxay guursatay maajid nasiiryaana oo baylot ah oo la yaqaano maajid waxa uu ku qabay si sharci ah laakiin asna mashaqo yar baa ku dhacday oo diyaaraddii uu waday baa la waayey markii ay xaqiijisay in dhimashadiisu xaqiiqo tahay warqadii dhimashadiisa soo baxeen isna cudadii bay dhamaysatay waxay guursatay ninka afraad wiilkan meesha fadhiya la yiraahdo engineer Fariid oo engineer diyaaradaha ah ahna ninka aasasatan dacwadan soo oogay mudana garsoore meeshan waxa kaaga cad zuhra cala allah si ku talagal ah 4 nin inaysan hal mar wada guursanin ay mid walba gooni u guursatay sidaa darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa faylasha hadda ku hor yaalla ee gacantaada ku jira ee gabadhan lagu soo eedeeyay saxiix Khaliil warqadu ku qoran inaad ka soo saarto aadna dalbato saxiixeeda ay ka soo saxiixday safaaradda Masar ee dalka Ingiriiska labadooda inaad isbarbar dhigto deetana waad ogaanaysaa wixii jira meeshana waxa kaaga cadaanaysa saxiixii ay saxiixda eedeysanaha iyo kan uu Khaliil siixay inaysan ba isu dhaweyn taasina waxay noo sii cadaynaysaa saxiixa gabadhan lagu soo eedeeyayba inuu yahay mid aan sal lahayn oo falsa marka mudana garsoore maadaama intaanoo cadayma aan hortaada keenay waxaan kaa codsanayaa in gabadhan eedeysanaha ah xornimadeeda dib aad ugu soo celiso mudane hadalka aku andacoonays hadduu sax yahay oo dhahaysa zuhura ma saxin warqadda marka waxaa taas daliil u ah inay zuhra weli tahay xaaska jalaal sharci ahaan guurka ugu horeeya ayaa sax ah saddexdii ka dambaysana waa baadil ii sheeg zuhra warqadaan saxiixda ma jiraan walaa alcadiim ma jirto wax waraaqo aan saxiixay walaalkii qaliilna wax way keena ma lahan aaw Khaliil kale sheegay waa kan waa uu fadhiyaa mudane xeer ilaaliye waxaan halkan ku hayaa warqada dawladda hoose ka soo saxiixay oo ku cadeynayo dambigiisa Khaliil ma joogaa waay kana waan joogaa kaal agtida ma xaadir haa waan joogaa waay kan anigu waay magacaaga buuxo قليل على الله مرسوق كم أقول سجاج أيوة كن إغاب إن أدرنت الشيء قسم أكو والله بقى وايقو والله وبالله ديار موتها إن أدقلته إن صحيح ذي ورقدي أو جلال ولا شيء ذنكي قوي محكمة الصدر فالسة إن أدو صحيح ذي أرنت اسمه جرتها مايا ماكو بينين
meeshii ayada ay iska lahayd ayaan aniga saxiixay anigana waxaan ahay nin keliya ee guriga jooga ee warqad ka soo timaado guriga saxiixi jira ayaan ahay wax kale oo aan samayna ma jirto oo maxaad ugu sheegi weysay inuu ninkeeda soo noqsaday macnaha waa iloobeeno maalintaasaad ilowday in ninkeeda uu dhahay waa ku soo noqsaday waa dhaaratee ogow ha waa dhaart sax waaye laakiin macnaha walaashayaan u baqaayay macnaha maxaa u baqaysaa ninkaas jalaal ah ayaan walaashay uga baqaayay maxaa yeelay mar walba ayuu dili jiray si xun ayuu ula dhaqmi jiray walaashay waana xumayn jiray waa been haynabi wariy aniga oo adiga kumaad ahayd aniga waxaa la dhahaa galaal waxaa nankii naagta qabay hadalkuma banaana iga fadhiisa anaa ku canaya maxaa dhac malay nabsaa miska aamuso aniga amarka qaada fadlan fadhiisa khaliil wada aniga markii hore waa rumaysan waaye walaashay inay soo fakatay iyadoo bursaciid ka soo carartay ayay guriga noogu timid kabacdi aniga iyo hooyaday ayaa meesha nagula nooleed sidaaseed arrinta zuhra arrintaas maxaa ka dhihi lahayd arun saasay ahayd khaliil hadalku harsan maa jira maya aniga intii aan ogaa waa ku sheegay aawi saajinka ii qaba khaliil gudaha ii dhig aniga dembi ma gelin ani boosto iyo arrimahaas waxba kama aqaanin aniga walaashay waa jeclahay aniga walaashay waxba ma haleen waa jeclaha walaashay walaashay waa jeclahay haddana waxaan dhegaysanaynaa 4 nin qof walba mid mid ayaan u dhegaysan doonaa aniga magacayga waxa weeye galaal cadiya gabadhan zuurana waxaan isku baranay iyadoo isbitaal ka shaqaynaysa xilligaasna isbitaalka hooyaday allah u naxariistay ayaa ku jirtay aniga zuhre guurka markaan ka wada hadalno oo iga ogolaatay anigoo dhan farxad ayaan la boobi gaaray kadib gooni ayay iila baxday zuhra waxayna ii sheegtay in hadda ka hor nin soo guursatay oo ay kala tageen laakiin aniga waxaan u haystay inay gabar tahay intaas ka hor waxaan ahay kabtan maajid duuliyana ah aniga shil ayaa igu dhacay miirka iga tegey miirkan wuxuu ii soo laabtay wax walba ayagoo isuda bedeleen si aan macquul ahayn mudana garsoore sida aniga la ii dulmay qof loo dulmay nimankan kuma jiro sidaan aniga u jeclahayna qof u jecel kuma jiro aniga markii aan jeclaanayay gabadhan naagaha saddex ay ii bursanayn anaa diiday araggeeda markaan arkay naag kale waan hilmaamay aniga waxay dhihi jirtay gaclisadeed wax walba u baahan tahay waa u baahanahay waa ku jeclaha dhibi dheefan kula qaadanaya nolol meel walba dirina kula seexanaya laakiin maxaa ka rabtaa 2 bil kadib wax walba waa isbedeleen naagtii iimaanka ahaa ilaagasi waxay kan torba dalab ayuu taan ku jiraa wereerinan ku jiraa kada waa inta ka keen maalin walbana 20 kilo bil ka banaankaan u baahanahay tire waxaan u si dheer buuq iyo fadeex dadka hortooda maalin walba ay leedahay ifur inay ifurto jirto ilaa naag way warkeeda dhig shal uma siin sababta ma taqaanaa waa jeclahay indhaygana aad ayaan uga jeclahay taas kuma ekaana dhibkaysii waday markaas dadka hortooda aniga ugu baadishay waxay keentay weliba inay gacan ii qaado markay gacan ii qaado wadkiisa waa shaydaan ay qaaday dalaaqan kordhiga anigana wada dhamaystira kadib waa naaga waa calaalasho waa isu xitir alla buu maxay furaysaa lugtay qabsato way ugu is ana waa madax adka nin bursocod ka soo jeeda ah warkeeda dhig shalaq uma siin kadibna way baxda masariiq aad alaabtoodii qaadatay way ga ilaa naag la furo fadhuuma yaale anigana kadib caloosha ay hurtay waxaan isku dayay naagti inaan soo ceshto laakiin aniga safar abi soo galaba safarkaygan biska aada laakiin muhiimadda waxay inaan soo ceshto waana soo ceshtay beenlow ayaa miigu horreysa 2 hadal oo niyadda iga qabsaday waxaan malaynaya inuu jecel yahay deetana waan guursaday guurka kadib waxaan kale maalmihii ugu madoobahay ee noloshayday soo mara waxay ahayd dil caay rafaad bahdil iyo hadda ka hor waxay ku dhacayo ceeba ayuu mar kasta ugu soo celcelin jiray laakiin fadeexaddaas ma ahayn mid aniga ugu talagalay asigana waa ogaa saas sidaasoo taa anigu asiga waan ku haystay waan iska rabay laakiin waxaa iigu darneed maalintaan gacantiisa ku dhiman gaaray dariskood dhan baa isugu soo baxay maalintaas furitaankana ma ahayn midoo asiga iskiis ii furay dadkii ar gabadhana bahdilayso masaakiinta waxaa ku horran iska dalaaqdo sidaasuu ii furay laakiin wallahi alcadiim anigu maanan ogeyn inuu isoo ceshaday xataa waraaqa maanan ila ceshasho ah nasiib darro hadda wuxuu malay in anigu ka gardaranahay laakiin runta markii laga hadlo asaga iga gardaran wuxuu rabay noloshaas xun inaan kula noolaado maalin kasta iskaga jukajukeeyo ilaah baa ii maqan kadibna roog gaduudan ayaan dhulka ugu fidiyey ubax ayaana sidaa ugu dul waray si ay ugu dul socoto ayada lafteeda waxay afkeeda ka tiri nin adiga kaa fiican isoo mari maayo markaas kadib cadow badan ayaa igu soo baxay dadkii suuqa igula tartamaya ayaa i xaasiday kadibna shirqool ayay ii dhigeen kadib xabsi ayaan galay 15 sano ayaa laygu xukumay naagteedana waxaa lagu yidhi ma waxaad sugaysaa ninkaas intaasoo sano lagu xukumay
adiga oo sidan u qurux badan oo saan u dhalin yar miyaad sugaysaa kadib maxkamadda ayay furiin ka dalbatay wayna ku guulaysatay anigoo taas aad uga xumaaday kadib waxay guursatay maajidkii bayloodka ahaa oo aniga xaaskayga la dhashay oo aan soo koriyey kadib maxaa dhacay kadibna abiilkii aan maxkamadda ka qaatay ayaa ii suurta galay in laygu cafiyo marka mudane garsoor yaa khaladka iska leh aniga naagteeda ma aan furin mana dalaaqin waxaan ku guursaday sida sharciga islaamka u qabo waddadeeda ayaan u soo maray ilaa haddana waxaan ogahay inay xaaskayga ilaa hadda ay tahay waxaan ku weydiiyaa hadda xaaskayga ma tahay mase ma ahan sharci ahaan ma diidan xaaji farag inuu ahaa qof fiican waana qof wanaagsan aadna way ii dhaqaalay jiray run ahaantii laakiin asigu jeceyl dartiis imuusan guursan sidaa ay tahay xaaji farag wax walba uu jecel yahay waa iibsadaa lacag buu ka baxsadaa markuu arkay inuu jecelna aniga iyo maajid ayuu isoo galgalay oo isku dayay inuu guursado dantiisuna waxay iyadoo keliya in aan wiil u dhalo ilaa iyo haddana ma aha inuu jecel yahay wiilka ayuu ugu haystaa xaaji farag waxyaabo badan buu ii sameeyey laakiin waxyaabahaasi maahay waxyaabahan anigu ka dalbaday waxay ahayd wax uu dhammaantiis iskiis u sameeyey xataa markii xabsiga lagu tuuray waa uu ii quuri waayay inuu iska kayfasaxo wuxuu ahaa nin dictatori ah wuxuu rabay 15 sano in asiga wax yirnaado oo uuba weligiis ifasaxin oo noloshayda baabi'iyo kadibna maxaa dhacay waxaan arkay saaxiibkayga qaaliga ahaa oo igu noqday sun waxaan arkay ninka anigu gurigiisa ugu soo koriyey ee aabbee camal ahaa oo isbedelay waxaan arkay dadkii ka hadli jiray jaceylka nolosha wanaagsan iyo raxmadda oo u soo jeestay inay ka hadlaan ganacsi iyo damac oo keliya sidaa daraaddeed mudan garsoore anigu waxaan jeclaaba arrimahan oo dhan inaan isaga baxo waxyaabaha aniga ii khaaska ahna aniga zura waa ka wada hadalna waana dhammaysanay keliya waxaan u baahnaa wiilkayga inaan arko mas-uuliyaddiisana lagu soo wareejiyo maajid meel weyn buu iiga yaalaa laakiin maan filin ereyadaasoo kale inugula hadli doono wuxuu ahaa qoftaa noloshayda ugu jeclaa maajid asigaa ay dayaxay anigu maanan dayacin noloshayda wuxuu intaasoo dhan u samaynayaa ninkii soo koriyey laakiin habiis ma aha dhibaatadan ku jiro dhan asigaa u sababa garsoor aniga ma rabo inaan waxa badan ka hadlo maajid tawfiiqda laha waafajiyo anigu weligay kuma fikirin wiilkaada aabihiis u diid cadownimada noocaas ah maajid uma qabo kadibna maalintan islaa ku dhaqaaqa u sheega jaceylka aad u qabtidna waxaan ogaaday saaxiibkayga qaaligaa inuu asagana jecel yahay taasna waxay igu kaliftay inaan tilaabo dib u qaado candhuufteeda dib u laqo anigoo ixtiraamaya saaxiibtinimada wallaahi alcadiim markaas kadib waxaan doontay gabar kale si aan u guursado si zahre aan qalbigayga uga saaro laakiin taas waan awoodi waayey kadib maajid ayaa dhintay waxaa la ii soo sheegay diyaaraddii oo waday inay dhacday kadib waxaa la soo saaray shahaadadii dhimashadiisa anigaana wax ka duuga oo janaasadiisa xataa ku dukaday kadib xaaskiisa ayaan garabkeeda istaagay maadaama ay dhibaato weyn ku jirtay kadib xiriirkaas waxaa jeclaysan waaya gabadhii aan qatobsada faraatiga iyo indhaha iga dhufatay anigana shib ayaan ka iri waxaan u sheegtay zuure inaan jeclahay markaas ayadana waxay tiri waan ku jeclahay kadib waan isguursanay taasna waxaan u yeelay anigoo ilaalinaya sharafteeda iyo sharafta saaxiibkay kadib dhididkayga iyo dheecaankayga ayaan waxaan ugu iibiyey guri villa ah kabacdi waxaan isu raacnay sharmarshe kadib meeshaas waxaan ku galnay honeymoonka wixii ka dhacna meeshaan kuma faahfaahinayay annagoo honeymoonka ku jirna xaaji fargan la xabsi laga soo daaya wuxuu yidhi zuuri naagteyda waaye taas waxaaba kasii daran maajid oon dhimasho ku ogeyn aad dib u soo noqda wuxuu yidhi zuuri anaa qaba annagoo ishaysana mid kalaaba soo baxo galaal dhow wuxuu yidhi naagteyda orijinaalka aheed bu waaye marka garsoor taladan adigan gacanta kuu saara adigana waxaad fiirisaa gobonimada waxa zuuro soo guursadoo dhan kana ugu xun raganimada iyo gobonimada iyo waxa uu sheegaya dhan bug waxba kama caado qaata waaye fariid waa ninka ugu ciyaara suuqsan isoo mara noloshayda ma hadda waa aniga nin fiican isaga kay dhigaya laakiin hadal muhiim oo maxkamadda horteeda ka iloobay inuu idhahay xoolahaada barkeeda isii haddaad doonayso inaan ku furo xataa wuxuu u tagay xaaji farag markaasuu haddaad doonayso inaan suuro furo isii lacag ninkaasi waa duli anigana qaladka ugu weyn uu sameeyey wuxuu yahay inaan ninkaas aaminay oo aan guursaday zuura maxaa kalaa ku darsanaysaa afartaadan hadallada ay soo sheegeen anigu wax kasta waan kuu sheegay sida ilaah ogyahana weligay midna qaladka maanan gelin aniga laakiin bilcagsi ayaga ayaa afartooduba igu xadgudbay haddana waxaan diyaar u ahay wax kasta oo la igu xukumo wax yar kadib ayaa maxkamadda go'aanteeda gaaraysaa
annagoo wada joogna maxkamadda waxay go'aansatay kow in zahra calallah aysan dambi ku lahayn tuhmadda lagu keeno oo ah niman badan ee wada guursatay guurku iga horeeya oo ka dhexeeya ayada iyo jalaal catiya ayaa sax ah tan labaad eedaysana khaliil marsuuq in maxkamadda la soo taago anigu walaashay aan u naxay anigu walaashay waa jeclahay walaashay u naxay walaashay u naxay aniga dhagayso maxay tahay aniga naagta ma furine maxay tahay ninkaanaan la xukum maxay tahay shee waa arrinta alxasil waxaan kuu sheegayaa naagta waxa qaba galaal war aawo wiilkaygina oo aan iyada ka dhalay adig wiilkaaga ayaa kugu haysta wiilkaaga adigaa leh maajidkiisa asagaa leh waayahay waa gartay laakiin iyada ma ka dargin miyaa weli ninkaan galaala waa qurxoon yahay that's why laakiin anigaa dabagelayo waan ka furayaa galaal ishaysan maya haddaan gartay marka hore ha laga furo warhaadhay dhegeysa galaalow arrintan aad ka hadlaysa leedaan isu soo noqonno waxa weeye waxaan madaxa geli karaynin kaale maxaa waaye waxaan weyn oo madaxa gelaynin aniga adiga arrinkeena maxkamadaa dhammaysay waa ku qabaa mase waxaa rabtaa hadda mar kale inaan maxkamad kale dib u furo adiga waa riyoohoysaan umaleeha gabadhan aniga abukaataan waa xaq waxay u leedahay abiil inay arrintaada ka qaadato oo labadiinna aaba kala socotiin midda kale adiga gurigayba diyaar u tahay inay ku siiso qalabaysan oo fargeetadiisa iyo qaadadiisa xataa ka maqnayn maxaa kala hortaa marka maya ha igaadin aniga yah aniga haba igaadinaa kuri marka horaan ka tegay guri buuxo guriga alaabta ka buuxdana meeleegeysa ma aqaano warhaadha aniga sidaa ii furtaba buur saciid kumaana noqon midda kale maba aqaan xafashkaa sheegayso meel aan geeyeyba sidiisa waxba ha iswareerinin waa laguu celinaya lacagtaada soo qaymayso imisay ku kacayaan xashafku maxaa saas u dhahee adiga wixii lagugu guursaday adigaa xaq u leh wixii alaaba oo dhan ninkan wuxuu xaq u leeyahay lacagtiisa meherka iyo masruufka uu ku siiyey indhaha uga dhufee halihii bil uu kula jooga soo ma taqaanid u xisaabi wixiisa gacanta ka saar galaalo waxaan kuu sheegayaa waxaad u baahan tahay inaad maxkamad iyo balaayo intaad isku wareeriso haba yaraatee haddana aadan wax intaas la-eg aadan iga helin mase waxaa kuu fiican hadda inta warkayga maqasho inaan lacag fara badan ku siiyo oo aadan weligaa ku riyooninba si aad noloshaada dib ugu soo bilowdo arrintaa kasoo fikir iina soo sheeg abbay adigii maalkaagaba ma igu soo shubantiin nimca dhafto waaye markee laakiin yaab waa wallaahi maxaa sameeyaa meeqaa isee ii sheegbo laakiin ogow aniga hal shuruud ayaan wataa waxay tahay halkaa shuruud aniga shilin bixin maayo ilaa aad furto furiinka iyo waraaqaha waxa dhanna fawsi ayaa naga marqaati noqonaya aniga raalliyaan ka ah laakiin sharuud waxaan rabaa waraaqda furiin ku qoran yahay in lacagtana ay ku dul qoran tahay maxaa yeelay aniga xaqiiga meeshaasoo ku jiraa kala baxnaa waaye anna waan ogola saas khayran noogu dhammaato laakiin waxay sheegtaa quruxlee meeqaa bixinaysaa ii sheeg anigu waxaan leeyaban horta xaaji farag lacagtiisa muxuu u daadaadinayaa base inuu lacagta ku dhoolo iska jecel yahay muxuu lacag ugu dheelaase waa adiga qofkii ku helaya lacag inuu daadiyo iska dhaafa xaaji farag kambiyaal inuu dartaa u galo diyaar fiiri joogaaga iyo jamaalkaaga haye adi warkiisii fikirkaada maxaa fiirsan ka bixi laahay aniga hadda weli baada fikirin maxaan ka fikirayay jilcibo inaad guursato zuhra waad og tahay shucuurtan jacaylka weligayba gudahayga inay ku alxanayd weligay inaan ku jeclahay dhowr marna waa kuu taataabta hadda ka hor maxaa igu sheegi weyse inaad saas dhan niyadda iga rarabtay zuhra hadda ka hor soo xasuusa hal mar ayaan arrintan isku dayay inaan bannaanka soo dhigto kadib waxa ay tiri ma xasuusataa waxaad tiri waxaan rabaa inaad walaalkay qaali a noqoto sidii qaliiloo kale ayaad agtayda ka tahay anigana markaas wixii ka dambaysay hadal noocaas inaan kugu soo qaado waa ka xishooda damiirkayga waa isii weysay jacaylkaygoo dhan dibaanu cishta wanaaggaan waday laakiin nasiib wanaag khaliiloo kale iskama dhigin qaliil haddaan noqon lahay saacaddan xabsiyaan ku aruuri lahay qaliil wuxuu helay wuxuu weligay ku riyoon jiray xabsi waa galay laakiin waxaa ka dambeeya 5 milyan oo gini ayuu xaji farag ka helay xaji farag arrintiisa aad bay igu adag tahay
lacag badan ayuu ku bixiyay si uu aniga ii helo weli wax lacaga kama bixin adiga haddii aniga booskiisa aan ku jir lahay halaas lacaga aan haysa lahay lacagta xirig inta ku soo safo aan qoorta sida fiyoore kugu sur lahay hal maroo ii qosashid lahay bas waa kugu maal beeli lahay wallaahi ne dhagaysa foosiyo dunidan dusheeda sideedaba maalku waa muhiim faqrinimadana waa wax aad u xun laakiin maalka wax walba laguma helo waxaa ka wanaagsan jacaylka laakiin waxaad moodaa sabankan inuusan saban jacayl lahayn maxaa saas u dhahee jacayl waa jira waxaan la gaabta oo la kori waayo jacayl ma aho boqorada haweenka ama santahay ka macaanka hawsheeda waay jindoobo jubbaanku maray bararam baram jabi jamaama jirmaadkaa igee zuhra ilaa hadda wallaahi ma aaminayo zuhra ku jecel waxaan isu maleeyaa nin samada sabayna quruxdeeda runta ah hadda lay soo baxday nin kalaa noqdo wallaahi fawzi waxay raiisu giyaabu waa soo noqonaa hay maasha allah see tahay fiican tahay nabad waxaana dadka afaantaada aad u jecel ها زايد وما تنتهي maasha allah ma heli kara 5 daqiiqo waqtigaada ka mid ah inaan wada fariisano ما يددا يسوقي والله waan ku sugi karaa aniga واي هدي جعلت adiga waxaan ku weydiinaa xas ma leedahay ما يا إلا مكرسني qurux badana waa kaan ku shanaysan lahaa ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط